سلام كبعدي وحان آدو فرح سنة هاي كلان كان قيمها يقدرين تله وما أنت كرد عيا مغالدة كسمايو أنا جوجل وضع تشي وسيدا أي حليلياش أما قدي فرصادو شيئين كترجمة يتبالان يوحي كلا لو داري كراي سو دوين كبعد وحارة مركو إنان كعودر دارانو قياسك waxaa laga yaabaa dadku inayna helin mid walba munaasabka wixii uu ahaa iyo waxa uu filayay ama ha noqoto deegaan ama ha noqoto siyaalo badan marka taasna macdiratan gurigiinni baad joogtaan qofna qof marti uma aha kistaadi xmaaya hadda xmaaya kaafisa la yiri marka taas waxaan rabaa inaan idinka raali geliyo cid kasta oo tabanaysa ama ay ku jirto waxoogaa sidaan maadar mudane sidaan ku dhacay intaan raali gelin ma ka bixinaya sababta meel kasto la isugu yimaado wax badan baa bin aadam baa nahay ducf badan baa jira taasna raaliha laga aado inta ka bacdi golahani oo markii hore asaaskiisu ka soo bilowday Nairobi kulankan oo lahaa midkii lagu gunaanadayay muhiimadiisu waxay ahayd xaaladda wadanka Soomaaliya ay ku jirto iyo sida ay maanta ku socoto inayna ahayn wajigii dawladnimada Soomaaliya asaaska u ah waxaa la yiraahdaa dawladda saddexaad waxay ka soo bilaabatay marka laga tago dawladdii hore ee 60kii ilaa 69kii iyo dawladdii kacaanka wajigan saddexaad ee carta ka soo bilowday waxaad ogtihiin dawladnimada Soomaaliya waxay asal u ahayd ama ilaa waqtiga lagu soo waday dib u heshiis حل خلافات أضود يا دولة نملا أورورينايو يا وحي هيد بيسكا دولة نمدا ما أنت هل كان ينكسر قالي وحأصلوا كوسا إسقانعين إسقادرين ولا تشي يا وحدتك كان حياة وميسكا أنت اللي يسوي ما ده وحلا يسوي ديو صوماليدو مركز دولة نمدا لقتها كهر حليا هذا الدولة نمدا عصري قبائل بايهاي ويس حكومة شرتي قبائل باليسو حكومة شري وحي لكلا قالوا أما وحي دتك نحن سوى كلا قارة رقم بالغو حلين شري لكن دولة نمو وحي كانت بالين سيستم دولية هي نظام دولة نمو انت كتبنا تيمي يقاب كدقن كيا إن يلا كنا قلنا تاسانا ما أنت كسو قارني واحد السببين مركا قوشني معها ميت سومالي لقود دومينيو maaha mid dawladnimadii lagu baabiinayo maaha mid dawladnimadii Soomaaliya meeshay joogto meel ka xun loo sii wada waxay ahayd war sidani ma noqonayso taladaani dad bay ka dhaxaysaa aan isu nimaadno aan ka tashano sidani sax maaha waxay dawladnimadu ku socotay wajigeeda inayna ku halaayo maanta madaxweyne xasan sheekh isaga madaxweynaha waxaa wax badan ka maqan shalay meeshii uu soo maray iyo marxaladihii lagu jiray iyo hadaladiisii iyo wixii shalay markii aan waxyaalaha qaarkood la diidanaa meesha uu taagnaa maanta extreme boqolkiiba 360 buu wareegay umana muuqato waadna ogtihiin waxaa maanta inala fadhiya Sheekh Shariif iyo senator madaxweyne hore Puntland Cabdiraxmaan Faroole ood garanaysaan 2012 meesha ay gaarayeen iyo hadalladu meelaha uu gaarayay dhinaan dhirintu ilaa markaa dambe laga gaaray dawladdii la soo khatimo kumeelgaarka ah oo loo gudbo dawladnimada aniga xasan labadoodna banaankan ka joognay markaas maanaan ahayn dadkii dawladda ku dhex jiray ee wax sameynayay in markaa maanta ay noqoto inaan arki weyna shalay wixii la soo maray iyo siday ahayd oo maanta aan qaadano sidan aan yeelaya anaa kan sameynaya hadday dictatorship wax tarayso Soomaaliya meel ay ka bixin lahayd maanta halkaas waa la soo dhaafay adduunkuna hadda uu ka gudbay barnaamijkaas sidaa daraadeed waxaa muhiimadda shirkan ay tahay ama natiijada ka soo bixi doontahay inayna Soomaaliya ku jiri kareynin gacan hal qof indhalaan sidan aan yeelayna waan ku soconaynaa ay tahay sidii shalayba la yeelayay sida maanta ayna hureynin in la yeelo talada miiska la saaro
waqtiga dhimanna la garanayo waqtiga dhiman ee maanta ka dhiman xilligii doorashadu baarlamaankuna waa la yaqaanaa abril buu dhacayay madaxweynahana waan garanaynaa hawshaasi ayna noqon karin hawl sii socota taana macnaheedu uu yahay dhibaatada ka timaada waa mid qof walba saameynaysa oo taabanaysa taasaan doonaynaa marka inaan ka hortagno oo la caddeeyo inayna suurtagal noqon karaynin waqtiga loogu talagalay waxaan inuu dhaafo timeka loogu talagalay iyo sida loogu talagalay iyo sida saaxiibaday qof waliba siduu shalay ku tagayay si ka bedelan inayna iman karin ilaa markii la bilaabay doorasho toosa waxaa la raadinayay bay ahayd dowladda maanta jirtaay waqti fiican bay bilowday inay tiraa qof iyo cod baan ka shaqaynaynaa iyo deegaanaan xoreynaynaa laakiin waxaan garanaynaa natiijadii maanta meesha ay ku dambeysay intii la hayay ee la qabtay gacantay ka baxday qof iyo codkiina wuxuu ku soo dhammaaday dhul la dumiyo intaasoo milyan oo ku baxda gobolka banaadir baan dhisaynaa councilo dhisaynaa sidanaan yeelaynaa doorashaan qabanaynaa intaasoo dhan waxay noqotay maraaxisha iyo stebiska la qaadayo ee la garanayo natiijo la-aanteedu meeshay ku dhammaanayso mid waan rabaa si shaksi aan idinku sheego soomaalidu inay iscafido oo qof waliba qof kale wuxuu u qabo uu iscafiyo waa shay min addiina maanta xasan waa madaxweynaha qaranka mandatekiisiibuu ku fadhiyaa waxaa laga yaabaa jubbaland inay tahay cidda culayska ugu badan ka tirsanaysa laakiin wax shaksi oon aniga isaga isu qabniyo waxaan u qabo midna ma jirto oo cafis buuna iga yahay waxbana uma qabo waxaan ka tirsanayaana ma jirto amaa waxa aan isku soo diidnay aan kusoo kala tagnay waxay ahayd maxaan doorasho uga baahannahay haddaan ku heshiina waynu iska joogi karnaa intaynu doonno aan iska joogno doorasho uma baahnin sharcigaan wuu jiifaa sidan aan yeelno waa wax shalayna aanan aqbalaynin maantana aan la aqbali karaynin mas-uuliyadda weliba markaan in kale kusii daro deegaankan hadda jubbaland waa meel aan is leeyahay horta waan yaro gaabinaynaaye dowladnimada soomaaliya o dhan jubbaland baa laga soo dhisi karaa maxay tahay sababtu dee soomaalidii oo dhan baa joogta aan iska joogno ka iigu dhow maanta ima aqbalayo aan iska joogno oo sida madaxweyne xasan uu ku talinayeen isku diidnay ahayd maxaan dowlad uga baahanay shilimana waan qaybsan karaa waana joogi karaa sidaa aan yeelno waxaan isku diidnayba ma raba markaa taa inaan kusii wax dheeraado waxaan rajaynayaa iyadoo la niyadsan yahay shirkaani macnihiisu inuu yahay maanta soomaaliya god bay ku dhacaysaa samata bixin bay u baahan tahay xeerarkii oo dhan baa laga tegey sharciyadii baa laga tegey dhaqankii soomaalinimadaa laga tegey maanta dayaca iyo burburka magaaladii muqdisho ka jira iyo deegaanadii waad arkaysaa waxa maanta dhacay shabaab waxay noqdeen maanta inay awoodda ugu badan waddanka o dhan ay ku yeeshaan waxay halis u tahay in magaalooyinka waaweyn waxay rabaan maanta ay ka sameeyaan oo ay siday rabaan ay yeelaan intaasoo dhani waa ducfiga iyo nooca dowladnimadu sida ay ku socoto sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan idhaahdo madaxweyne xasanow waxaad shalay diidaneed maanta cid kaa aqbali mayso dowladnimaduna wejigaa ma yeelanayso shirkaanna waxaad ogaataa waxaa ka soo bixi doonaa inay tahay gogol soomaaliyeed ay ku tashanayso haddii madaxweynuhu uu si aada u fakaraya wuu iman lahaa intuu yimaado odhan laha wadhama meesha taladii waan dhigay xageen talada haddaan idinla bilaabaya laakiin hadday noqon weyday timeka u dhimanna inuu yaqaano waana la garan karaa maanta waktiga dhiman jubbaland xildhibaanaha ka soo baxaya senataro puntland bay ka soo baxaan hirshabeelle galmudug intaba koonfur galbeed xildhibaanadaasi haddii weji lagu heshiiye la waayo oo dowladnimadu ay qaab yeelan weydo wax diidayaa ma jiro berri inaan shalayba waxaan u malaynayaa doorashadii hadda ugu dambeysay sanadka wuxuu ka bilowday kursiga ugu horreeya waxaa laga doortay jubbaland baa soo mahay inaan bilowno maxaa diidayo konton iyo kowdii sanadkii kuwii kaleba aan bilowno guddiyadii la sameeyo sababtoo guri mugdi madow ma sii geli karo sharciga oo dhan kuma sii tuban karo xaaladda waddankuna siday ku jirta kuma jiri karayso in la iska joogo
iyo in sidaa la yeelana dee Soomaaliya meeshay gaadhsay baan garanaynaa marka waxaan rajaynayaa kolley maanta ra'yi badan baa soo la jeedin doonaa madaxduna way urursan doontaa dhammaan dadka Soomaaliyeedna waan ugu baaqaynaa barnaamijka aan ka shaqaynaynay Soomaali inaan duminno ma inaan Soomaali dhisno haddii sida ay maanta ku socoto ay ku sii socotana waxaan rabaa inaan ka digo oo khalkhalka siyaasiga nooca uu sii dhaco amnigu inuu saameyn ku yeelan doono dhammaan gobolka dowladaha ku yaalla oo Geeska Afrika cid walba meesha uu tagi doonta beesha caalamkuna aad bay u daraynaysaa u fiirinaysaa go'aanka shirka ugu dambeeyay iyo baaqa iyo waxa la soo jeedinaya go'aamada waxay ka soo bixi doonaan xilliga xidhitaanka laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo aan ugana mahad celiyo inta ka soo qayb gashayba ujeedadu inay tahay shirkan in Soomaali lagu badbaadiyo golahaana uu ka shaqaynayo sidii Soomaali mustaqbalkeeda gacanta loogu qaban lahaa loo badbaadin lahaa doorashadiisa ay u dhici lahayd wax la isku waafaqsan yahay ee aan qaban karno iyo waqtiga inoo haray in laga shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin